فاكتب له يا ربي كل مسارتي تنسيه ما قد مر من أحزاني. كشف الأذى أو جنة ألقى بها من قد مضوا في سالف الأزمان. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaashin saabira oo idin leh soo dhawaada adduunka meel walbaad ka joogtaanba walaalayaal. waxaa inoo socda barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee iska daweeya rheumatism ama rheumatismka. marka walaalayaal maanta waxaan idin wadaa dawo aada iyo aada u muhiima oo qof walba gurigiisa inay ay taalo muhiim aada iyo aada u tahay. marka maanta dawadan idin wadaa waxay tahay walaalayaal waa xaba sowda, yani xabada sowda, waana saliida taan ka hadlayaa maanta. marka walaalayaal maadaama ay xilli qaboobo u soo socdo dadka rheumatismka qaba ama lafa xanuunka maaragtay aada iyo aada u hayo, lafa xanuunkaas oo ah dhabar ha noqoto, qoorta ha noqoto, lugaha, gacmaha, meel walba oo laf ilaahay kugu sameeyey yacni way ku degaamayaan xilliga qaboobaha iyo xilliga caadiga ah. marka walaalayaal yacni saliidani maxay tartaa, mase yacni faa'iidada intee leg bay leedahay. marka walaalayaal dawadani aada iyo aada bay maasha allah u tahay saliidan xabasowdada ah. marka waxaad sameynaysaa dawadii waxaad soo qaadaysaa saliidii hameenkii oo kale markaad seexanaysid ama maalintiiba aada joogtid baad waxaad sameynaysaa insha allah biidnillaah. waad ismarinaysaa meeshii ku xanuunaysa oo laf ah sida lowyaha, sida mataqaanaa lugaha, adigu meel walba oo lafoo ku xanuunaysa baad ku duugaysaa. marka lugahoo kale iska gasho insha allah labada lugaha hoose, lowyadana markaad marsatid yacni ha kugu jiro surwaalkaagu maasha allah si ay kugu hurto oo ma aragtay xanuunkii insha allah biidnillaah waxaad iska dareemaysaa xanuun kaarkoo kaa kala yaraada. gacmahana sidoo kale u mari, lafta dhabarkana sidaasoo kale u mari, qoorta mari. marka too muchna ha iskaga dhigno, ha isku badinin, wax walbo la isku badiya ma fiicno walaalayaal, yacni si aadan aada ugu dhididin. marka hameenkii dadka awooda inay hameenkii ku seexdaan oo kale way sameyn karaan. dadka kale maalintii gurigooda iska joogana intay marsadaan bay hadhowta iska dhaqi karaan insha allah markay banaanka u baxayaan. marka yacni wax dhibaato ah ma laha urteeda iyo waxaas dhan. yacni hadduu qofku xanuun hayo runtii badanaaba urtu micno ma yeelanayso iyo wixii uraya, because qofka xanuunkiisa ayaa ka weyn. marka walaalayaal waxaan idin leeyahay ka war doona xabada sowda, saliidda xabada sowdada. qofka hadduu laazimo oo yacni uu wado muddo maasha allah waxa weeye lafaha aada iyo aada bay ku kabanayaan, lafaha garaaca badan baa kaa ba-ayaa. yacni xataa dad badan baa maasha allah iisoo sheegay in iyagoo lafahoodu ay aada iyo aada u xanuunayaan ama ay qaadi kari waayeen, yacni maasha allah ilaahay ku daweeyey. marka bahashan yaan la yaraysanin, waa dawo aada iyo aada u fiican. gurigiinana yay ka dhammaaneen saliidda xabasowdada ah, waayo faa'iidooyin badan bay leedahay. ma aha only lafa inaad ku duugtid oo marisid, yacni waad cuni kartaa oo iyadoo midhihii baad cuni kartaa, shaah ku darsan kartaa. taasna waa another time baa idinka warami doonaa, laakiin tan waxa weeye hadda aan ka hadlaya waa saliidda. marka ha mogaanina insha allah biidnillaah. isla ogaada saliiddaas waa inaad laasimtaana mar walbana marsada insha allah. maalin walba marsada haddaad rabtid xanuunku inuu kaa bo-o oo jirkaagu isbedel uu sameeyo. wax walbaba haddii aada wadid oo continuously ka dhigtid ood wadid faa'iidadeeda waad helaysaa. laakiin ogow, haddaad intaa hadda marsatid iska dhaaftid, maalin kalena marisid iska dhaaftid, wax micno ku sameynaysa malaha. marka ku dadaala walaalayaal, qof walba caafimaadkiisa waa inuu ku dadaalaa insha allah. qabow baa soo socda, lafa xanuunka iyo qabowguna aada bay isugu daran yihiin. yacni garaac ma seexan kartid, jirka dhan baa ku xanuunaya.
qofka markuu kaar iyo xanuun hayana waad ogtahay jawiga dhan baa ka bedelmaya. marka si aad taas uga hortagtid hadday hadda xanuunka lafaha ood ku cusub tahayna bahashaas isbar mar walbaba. haddii ay lafuhu aad kuusoo xanuuni jireenna bahashaas hadda isdaba qabo oo marso, xataa dhib ma laha urteedu. iskana dhaq maalintii gurigaaga intaad iska dhex joogtid marso, gacmaha marso, lugaha marso, maasha allah. wallaahi faa'iido weyn baad ka arki doontaa, waadna arki doontaa yacni inay wax kuu tartiyo in kale insha allah biidnillaah. wixii haddaad ka heshaana insha allah wixii commentiga hoos iigu soo qoraya su-aal ah. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo dhaha channelkeena, gambaleelkana ma aragtay double click noogu sameeya si aad u heshaan video walba oo cusub uuna idinka lumin. fiidiyoyada cusub yaa idinka lumin aan soo geliyo markaas insha allah. until next time waxaan idinka tegayaa khayr iyo barako meel walba adduunka ku joogtaan. ilaahay ha caafiyo intii jirana meel walba ay joogaan muslimiinta oo dhan, ilaahay baan uga baryayaa. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.